ولهبا aniga ayaa clipka duubaya anigiina qisadu igu dhacday gurigeyga ka dhacday ilmahayga 8 sano jira ayay ku dhacday odagayga ilmaha aan dhalay ayayna ka dhacday sheedan bay ka dhacday laakiin loo haystaa dambiga loo haystaa walaal aniga waxaan ku noolay wadan nabad ah ayaan ku noolahay oo sharci ka jiro oo qofna uusan qofka kale ku xadgudbi karinin oo sabeen ka sheegi karinin ayaan ku noolahay oo wax kasto been oo sheegtay inta la baaro laga daba tagayo lagu soo qabanayo case kaani ma ahan case hooyo maseersan mooyo xanaaqsan ama nin inaag istagaale been isaga sheegan ma ahan case kaani waa case qof dignitigiisa iyo sharaftiisa iyo la dhibaateeyay at the same time qof kale oo hadii sharciga la maraan dhibaateeyay in sharaftiisa wax looga dhacayo weeye so case kaani waa case u baahan aad qof kasto in uu aad uga fakaro oo arintan ay qosayso sida aniga oo kale aniga qofka in aad uga fakaro u baahan alxamdulillah aniga oo caruur haysta ayaan waxaan guursaday walaal Soomaaliyeed walaalkii ilma ayaan u dhalay muddo fiican baan isqabnay alxamdulillah dhibaato ma jirinin maartay ilaahay waa naga hayay dhib oo dhan laakiin waqti habeena ayaa gabaraan la soo booday aniga waliba iimaysan imaanin waxay u tagtay gabar kale oo walaasheeda oo 9 sano jirta waxay u sheegatay in dhibaato lagu hayo oo aabe uu dhibaato ku hayo waliba iyadoo magaca baaba ay dhahaysa ayaa baaba dhibaato way baaba uu u taqaan iyadoo yar u guursaday iyadoo yar aad u yar ayaan guursaday maartaan aan qof sanad waxaas ka dheereen marka alxamdulillah rabbil alamin aaba ay u taqaanay wixii hooyo baaba aabay waxaan yeelay aabe hooyo ayuu khiyaameynaya aniga ayuu khiyaameeyaa dhibaato ayuu ii geystay game aan nabcahay ayuu ciyaarsiya aniga game kan waa aan nabcahay mana jeceli marka arintaas ay soo bandhigtay waxay sheegtay in maartay xadgudub nafsiyan lagu sameeyay aniga hurda ay arinta la soo sheegay gabadheedii kale ay isdhacday intaas oo arrimood ay sheegtay وكاسا أنا أنت ويروح ماتي ثم القفل بس هو فسرتها لكن أنا جا برنامج صحان قف أفكسي جا أودا وتبان هاي بروفيشن كلمة ويا هاي أو تي أفكسي مركب مدام أو تي أفكسي شغالة هاي أنساس أهان أودا شو ما دي بسمي سنتهاي إسلام مركبة أرنتين عند كبدي فيديو وحي بصود على سيفتيجا إلالي مركا walaalkii walaalo hadda arintu yaa isku soo duuduubo arintu waa socotaa dacwada ku jirta arin been ma ahan aniga shaki iyo anaaba shakisan waa in wadaado akhlaaqlo qof balwad la muusan ahayn qof loo qala shakin kara arintan muusan ahayn qof aan maartay waxay ku soo dhacday safety-ga ilaali marka walaalkii walaalo hadda arintu yaa isku soo duuduubo arintu waa socotaa dacwada ku jirta arin been ma ahan aniga shaki iyo anaaba shakisan waa in wadaado akhlaaqlo qof balwad la muusan ahayn qof loo qala shakin kara arintan muusan ahayn qof aan maartay aad aan looga shakin qofna uga shakin karin buu ahaa aniga ma shakin karo ayuu ahaa marka walaashay waxa dhacday walaalayaal Soomaaliyeed dawladdu way baartay arinta way daba gashay hal mar lama baarin saddex mar ama la baaray gabadhii waa la wareystay waa la kala wareystay waa la baaray waa laga daba tagay wax gabadh iska bedelay warkeeda ma jirto damage aad u badan yahay hada ilmihii dhakhtar baa loo diray oo aadaa maartay anigiina alxamdulillah waan hayaa dacwadiina way noo socotaa walaalkiina xukunkiisa wali waa socdaa wali xukunkii final lama gaarin lama dhameystirinin marka adaan la dhameystirinin oo wax sharci dawladeed ku socdo uu ku jiro inaan ka hordaga ma rabo waxaan video u duubaya waxay tahay wacyi gelin waay walaalka in lagu qoosqaato laba arrimood baan ka rabaa midda koowaad community-ga anaga waana la baaray community dadii soo direen community-gana la dhex galay kori hoos loo baaray wax la qaranaya ma ahan gaaladii warqad soo diyaarsheen ay leeyihiin family-kan community kuma dhex noolaan karo community-ga soo wareysteen oo u tageen أنا community u tageen ma garanayo qofka ila hadlayna ma aqaan man ay sheegayaan in dadku ogtiinayso iyo dadku sheegayeen laakiin way soo wareysteen way soo cadeeyeen inaan nala ku noolaan karin inaan dambiilan nahay inaan dhaqan xumo sameynayno waxana la ku haystaan ay yihiin maxaad u sheegteen arintan
arrintan maxaa u sheegteen soomaaliyey goorma imisa xumaanta qarinaynaa soomaaliyey imisa xumaanta qarinaynaa soomaaliyey haddii raggii ilaahay uu guriga noogu diro calafka noogu diro curdi naga dhalay ays ilmaheeni noo dhaafaynin oo cunugii agoonkii waa dhalay aysan dhaafaynin oo kii waa soo dhashay aysan dhaafaynin oo kii naagtoo dhashay aysan dhaafaynin soomaaliyey imisaan qarinaynaa xumaanta culumadeena imisay xumaanta qarinayaan culumadeena maxay ahayd faasuqa ma reebayaan war culumada dhibaatada haweenka ilmaha yarka lagu hayo kamal waligay ma arkin inta culumada maxaadira meel isugu yimaadeen oo qabteen dhahaya ilmaha yaryarka ragga dhibaataynaya ha joojiyaan ama xukunkooda sheegaya ilma yar oo 8 sano jira ayay Soomaaliya dhibaataynaya markii la dhibaataya ninka dad kala saarnaya waardiya laga qabanaya waardi Faransa laga qabanaya Soomaaliya imisa dhibaato nagu wadaysiin Soomaaliya imisa dhibaato nagu wadaysiin Soomaaliya haweenka masaakiinta imisa dhibaato ku wadaysiin shalay maanta naaga ilmaheedii leysay maanta dhiban mid baa isdilaysa maanta kale tumida dhibaato keenaysa waxa soo dhan Soomaaliyeed noole Soomaaliya Ilaahay naga baqo ajaladan